Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteyda kusoo dhawaada channelkayga Sweets and Spices. Maanta waxaan la qaybsanaa quraac yar oo fudud ah si basa canjeerada aan u qas oo aan u dubo. Marka inta waxaan ku haystaa hal qaado oo leewid ah, hal qaado cusbo iyo 2 qaado sokor. halaha shay waxaan ku shubaa hal koob biyo ah. halaha shay aan isku labaa horta. biyahana qandac waaye wax yar, hal koob waaye. markaas waxaa ku daraa 4 qaando oo samaliina ah iyo 4 qaado oo bariis oo shiidan. marka halaha shay aan isku labaa si fiican. marka waxaan ku daraa burka waxaa waaye nus kiilo bur. burka markaa ku shubtid kulwa isku qasaa halaha shay. marka biyana way u baahan tahay. marka biyaha si ay rabtaa ugu shubay tartiib. marka halaha shay marka isku shubtid waxaa ku daraa 4 qaando oo mashaari ah ama porridge. 4 qaando oo mashaari ah iyo 1 qaando oo baking powder ah. halaha shay isku labaa si fiican. markaas waxaan qaadanaa mashiinka oo waxa kale uu shiido. marka halaha shay waa isku qasaa, waa shiida mashiinkaas ku shiida. marka shiida aan dhameeyo kulli si fiican isku labo waa daboola. bacan ku daboola ama anything hadaa haysatid. marka daboolshid waxay daboolnaane 40 daqiiqo camal ay daboolnaane. marka waqtiga markay noo dhamaato wadana bacda ku fureynaa, waa duweynaa waqtigiisa way dhamaatay. marka inta duwin horta lab si fiican u lab. marka hadda waa duweynaa canjeerada Soomaaliyeed si loo duweynaa. weelka furka oo canjeerada aan ku duweynaa. waa ka sabaa gudutay kulli saana u duweynaa sida canjeerada caadiga loo duwo. targetkay waxay ahayd qasitaanka canjeerada saan u qasto in aan tuso, because qof walba si u qastaa, qof walba si u dubtaa. ani saan u dubto aan u qasto aan tusay. canjeeradeena saan noo qurux badnaatay. waa kana kulli waa soo duwaa hadda. maasha Allah khafiif waaye, qurxay noo noqotay canjeerada. marka inta waxaa ku duwaa jibsi wax yar oo viazi aan ku duwaa jibsi ah. hada jibsiga diyaar waaye. isla markii hore beerka ka sameysanaynaa. jibsiga diyaar waaye, meel aan dhigaynaa. hadda beerka duweynaa. inta waxaa ku shubaa 2 qaando ama 3 qaando oo saliid ah iyo wax yariis oo basal ah. 5 daqiiqo camal dub basasha. markay dubmato beerka ku shubaynaa. beerka waa soo jarjaray waana soo dhaqay, diyaar waaye. isla markii hore ugu shubaa beerka iyo basasha iyo saliida isku duweynaa 3daas shay. marka beerka markay dubmato wax yar cusba ku daraa nus qaado camal iyo 1 qaando oo soy sauce ah. halahaas markaa ku shubo. markaas waxaa ku daraa jibsiga oo hadayd aan soo duwahayna ku shubaa. marka jibsi markaa ku shubo halaha shay isku gadgadi si fiican.
marka isla markii waxaa ku shubaa 2 xabo basal oo aan soo jarjarto weyn, barbarooni cagaar, jaalo iyo guduud ah. marka basasha bilaawaa basasha ku shubaa. basasha kulli halahashi isku gadgadinaa. marka basasha marka ku shubtay oo ku gadgadiyo barbarooniga, 3 barbarooni hal mar isku dardaraa. marka beerkeena diyaar waay bis hada isla markii hore dabka ka daminaa. waa kana quraacdeena dhameystiran, waad ka faa'iideysteen oo maleena saacan jeerada u qastay. fadlan channelkayga dad ku cusubtaa subscribe-ka iloowin, gambaleelka geeska ku yaal sidii markasta videogayga ay kugu soo dhacdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.